حلي النبي عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها أنيقا يا الدنيا محانا قد حيا وحان كدقنا سيدي قف geed hoos harsaday isagoo socota kadibna galikii dambana ka caraabay oo iskaga tagay inta yar geedka uu bacadka ka harsanayay ayaa adduunyada oo dhan ka dhigantay xulay nabigu calayhi salaatu wasalaam ma dunya fi al-aakhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fi al-yam falyanzur bima tarji' adduunyada marka la dhinac dhiga aakhiro adduunyadu waxay la mid tahay yaraanshaheeda iyo xaqiraadeeda sidii qof badweynta galiyay suulkiisa badii weynayd maxaa ka soo raacaya oo biyo ah oo fartiisa ku haraya badiina waa aakhiro farta biyaha soo raacayna hadday soo raacaanba waa adduunyadii wey xaqiiqadaas qofku marka uu dareemo wuxuu helayaa diinta dhadhankeeda iyo macaankeeda ayuu helayaa ragii hore waxay yiraahdeen markay iimaankii dareemeen waxay yiraahdeen wallah idha kana ahlu aljannati fi mithli hadha innahum la fi 'ayshin tayyib markuu cibaadaysanay ilaahay xusayo la khalaweynayo la gaar noqonayo ayuu wuxuu helayaa macaan iyo ladho iyo raaxo ayuu dareemaya dabadna qaarkood waxay yiraahdeen nicmada iyo macaanka aan dareemayo haddii ahlul jannuhu ay dareensan yihiin wallaahi ahlul jannuhu nicmo weyn bay ku sugan yihiin walaalayaal mansilada noocaasi wax sahlan ma aha inaad diintii dhadhamiso macaankeeda dareento ku raaxaysato jucilat quratu cayni fi salaa waxaan indhaha ku qabowsanayaa waa salaada markaan tukanayo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam diintii iyo takaaliiftii cuslayd inay isu badasho raaxo iyo macaan iyo ladho iyo indhaqabowsi waa mansilo ilaahay dad yar uu gaadhsiinayo allana subxaanahu watacaala dadkeeda haynaga dhigo mansiladana hayna gaadhsiiyo takaaliifta iyo sharaa'icda iyo diintiisa iyo sharcigiisana iyo iimaankiisana dhadhankiisa macana alle subxaanahu watacaala hayna dareys